السلام عليكم داوديال kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo Banaadir Star Media qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dawladda Itoobiya oo Soomaaliya ku tilmaantay dal fashilmay oo uu guumaysto abuuray iyadoo oo Somaliland ku tilmaantay dal madax banaan xukuumadda Hargeysa oo ciidankii ugu badnaa soo dhoobtay gobolka Sool iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo shaaca ka qaaday in madaxweynaha Soomaaliya uu geeri ka xigo in Somaliland loo aqoonsado dal madax banaan iyaguna ay diyaar u yihiin in ay duulaan ku qaadaan Soomaaliya si ay isaga difaacaan iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xubnaha mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada oo Garowe kaga qayb galay xafladda caleemasaarka hogaamiyaha dib loo doortay ee Puntland Saciid Cabdilaahi Dani halkaas oo hadallo kulul oo ku aadan wax ka bedelka dastuurka iyo go'aankii baarlamaanka Soomaaliya uu qaaday ay isku dhaafsadeen xubnaha ka qayb galay caleemasaarka qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka warbaahinta Banaadir Star Media u diyaar garooba ayagoo dhameystiran isu soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka warbaahinta Banaadir Star Media oo dhameystiran fadlan daawade markasta xusuusna oo xuska iyo xiriirka alle oo tuka salaada si ay ku soo gaaraan wararka iyo warbixinada joogtada ah ee Banaadir Star Media fadlan rukumo channelkan oo subscribe saaro mahadsanid ku bilaabay safiirka dawladda Itoobiya u qaabilsan Soomaaliya ambassador Mukhtaar Maxamed Waare ayaa gefkii ugu xumaa kula kacay dawladnimada Soomaaliya wuxuuna ku tilmaamay wadanka Soomaaliya dal fashilmay oo uu kolkii horeba abuuray gumaysto sida uu hadalka u dhigay safiirka Itoobiya Mukhtaar Maxamed Waare oo warbaahinta gudaha ee dalka Itoobiya wareysi siiyay wuxuu si qoto dheer uga hadlay abaal uu sheegay in Itoobiya ay u gashay Soomaaliya isla markaasina ay in badan dawladda Itoobiya ka shaqeynaysay sida uu isagu hadalka u dhigay in Soomaaliya ay cagaheeda isu taagto iyadoo la og yahay hagardaamada ay Itoobiya kula kacday in aanay marnaba cagaheeda ku istaagin Soomaaliya oo ka hana qaadin dawlad dhameystiran oo caalamka la jaan qaadi karta wuxuu safiir Mukhtaar Maxamed Waare sheegay in Soomaaliya aysan hadda ahayn dal awood leh oo dawlad xooggan ay ka jirto sidaa darteedna Itoobiya ku qasban tahay inay xiriir qoto dheer la samayso dhinacyada maamulada ee ka jira gudaha Soomaaliya Somaliland ayuu si dheer uga hadlay xiriirka kala dhaxeeya Addis Ababa wuxuuna ku tilmaamay Somaliland dal madax banaan oo isku filan Itoobiyana ay aqoonsan tahay hadalkan oo ahaa kii ugu adkaa ee mas'uul Itoobiyana ka soo baxa ayuu safiirka Itoobiya u qaabilsanaa Muqdisho ee dalkiisa dib ugu laabtay Mukhtaar Maxamed Waare wuxuu gaf weyn kula kacay dawladnimada iyo madax banaanida Soomaaliya taasi oo kaga sii daraysa xiisadaha Muqdisho iyo Addis Ababa xiriirka labada dal oo xumaa maalmihii ugu dambeeyay tan iyo markii uu dhacay heshiiskii Addis Ababa ee dhexmaray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadda waxa kaga sii daray cilaaqaadka liita ee labada dal safiirka dawladda Itoobiya u qaabilsan Soomaaliya Mukhtaar Maxamed Waare oo dhawaan dalkiisa dib ugu laabtay waxaana wareysiga uu siiyay Master Waare warbaahinta gudaha ee Itoobiya uu ku sheegay in Soomaaliya ay tahay dal fashilmay Somalilandna ay aqoonsan tahay dawladda Itoobiya sidaa darteedna ay ku qasban yihiin inay la macaamilaan dhinacyada gudaha ee Soomaaliya maadaama aanay Soomaaliya ka jirin dawlad xooggan arrintan oo loo arkayo daandaansi iyo gaf aan geed loogu soo gamban oo dawladda Itoobiya ay kula kacday madax banaanida gobonimada sharafka iyo karaamada Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waday dadaalo diblomaasiyadeed tan iyo markii uu dhacay heshiiskii Addis Ababa ee madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya kaga iibiyay Itoobiya isaga oo baddan 20 kiiloomitir oo dhinaca xeebta ah ku wareejiyay dawladda Itoobiya ee uu hogaamiyay Abiy Ahmed si halkaas ay ciidanka badda Itoobiya ay u saldhigtaan maadaama aan Itoobiya wax badan lahayn hase yeeshee dawladda Soomaaliya waxay qaaday dagaalkii ugu adkaa ee dhinaca diblomaasiyadda iyadoo caalamka oo idil ku dacweysay Itoobiya kuna soo jeedisay indhaha caalamka dawladaha caalamka ayaana si weyn u garab istaagay Soomaaliya balse Itoobiya wali uma muuqato mid ka waabatay damaceeda qariska tuurnimada ah ee ay ku boobayso qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya Somaliland ayaa ciidankii ugu badnaa soo dhoobtay gobolka Sool waxayna doonaysaa inay duulaan ku qaado deegaanada SC Khatuma wararka naga soo gaaraya gobolka Sool ayaa sheegaya in xaalad kacsanaana laga dareemayo qaybo kamid ah gobolka Sool oo ay wali dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda ay ka wadaan SC Khatuma iyo Somaliland ila dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in Somaliland ay ciidamo hor la keentay furimaha dagaalka oo ay isku hor fadhiyaan labada dhinac taasi oo keentay in xiisad cusub laga dareemo halkaasi
sidoo kale ciidamada deegaanka SSC Khaatuma ayaa iyaguna ku sugan aaga deegaanka Boqdarkayn halkaasi oo ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ay uga hortagayaan damaca Somaliland ay dib ugu la wareegayso deegaanada SSC Khaatuma wararka ayaa intaasi ku daraya in laga cabsi qabo in mar kale ay isfarasaaraan labada ciidan ee Somaliland iyo xoogaga deegaanka SSC Khaatuma maadaama guluf culus ay hadda bilaabeen labada dhan oo ka socda gobolka Sool ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca SSC Khaatuma hase yeeshee Somaliland waxay ku goodisay inay dib u qabsan doonto deegaanadii horey looga saaray oo ay ka mid tahay magaalada madaxda gobolka Sool ee Laascaanood oo hadda ah caasimada rasmiga ah ee dowlad goboleedka Khaatuma State. Somaliland waxay u muuqataa mid mar kale isku diyaarinaysa dagaal si ay u qabsato dhulkii laga saaray oo ay ugu horeyso xerada Gooja Cadde oo ahayd halkii ay joogeen ciidanka Somaliland ee ay ka maamuli jireen gobolka Sool balse barqacad laga farmaroojiyay. Xaaladda ayaa maalmihii ugu dambeysay deganeyd kadib dagaal muddo dheer ka socday gudaha magaalada Laascaanood iyo deegaanada kale ee hoos yimaada oo laga saaray ciidanka Somaliland. Madaxweynaha maamulka Somaliland wuxuu dhankiisa sheegay inay isdifaaci doonaan oo ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan duulaan uu sheegay inuu Somaliland kaga soo fool leeyahay dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya wuxuuna Muuse ku andacooday inay isu diyaarinayaan dagaal lagu difaacayo jiritaanka Somaliland. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo waraysi bixiyay wuxuu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ictiraafka Somaliland ka xiga geeri xilli ay taagan tahay xiisada ka dhalatay heshiiskii Addis Ababa. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa mar kale difaacay heshiiska ay Addis Ababa ku gaareen isaga iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kaasi oo Itoobiya loogu saxiixay qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya dowladda federaalkuna ay si weyn uga gilgilatay. wuxuu sheegay in Somaliland ay in ka badan 30 sano raadinaysay ictiraaf ayna xaq u leedahay in ay bad kira ah ay ku bedelato ictiraaf ay muddo badan raadinaysay sida uu hadalka u dhigay Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha maamulka Somaliland oo difaacay heshiiska uu Itoobiya ugu wareejiyay qayb ka mid ah badda Soomaaliya. wuxuu kaloo sheegay in cadaawadda Soomaaliya u hayso Somaliland uu banaanka keenay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii heshiiskan xadgudubka ah la saxiixay xilli dhawaan dowladda federaalku ay Hargeysa ka celisay diyaarad siday wafdi Itoobiyaan ah oo u tagi lahaa Hargeysa dhaqangelinta heshiiska Addis Ababa ku dhexmaray Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Itoobiya waxay weli dhankeeda wadaa in ay xiriir la samayso qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ka jira gudaha Soomaaliya waxaana wararka soo baxaya ay sheegayaan in Itoobiya hadda casuumaad ay u fidisay hogaamiyaha maamulka SSC Khaatuma Cabdulqaadir Firdhiye oo lagala hadlayo arrin la xiriirta xiisada u dhaxaysa Somaliland iyo Khaatuma. sidoo kalena ay Itoobiya doonayso inay dhaqan geliso damaceeda kala furfuridda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada si gudaha Soomaaliya ay xiisad hor leh uga abuurto isla markaana ay xifaaltan ula gasho dowladda federaalka Soomaaliya ee Itoobiya ka difaacaysa biyaha Soomaaliya ee duulaanka ay ku soo qaaday. ugu dambeynna magaalada Garowe ee caasimada maamul goboleedka Puntland waxaa ka dhacday xafladda caleemasaarka madaxweynaha dib loo doortay ee Puntland Saciid Cabdilaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Lugator oo ay ka qayb galeen caleemasaarkooda madaxda maamul goboleedyada ka jira gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynayaal hore ra'iisul wasaareyaal hore siyaasiyiin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud gudoonka labada aqal iyo marti sharaf kale. waxaa sidoo kale munaasabada caleemasaarka goobjoog ah wafuud ka socota dalka Itoobiya iyo sidoo kale dalka Kenya gaar ahaan deegaanada Soomaalida ee kilinka shanaad iyo sidoo kale NFD. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galaya madashan xilli ay taagan tahay xiisada ka dhalatay dib u furista dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya ay codka aqlabiyadda ah ku ansixiyeen in dastuurka Soomaaliya ee muddada dheer qabyada ahaa dib loo furo oo laga doodo dhameystirkiisa. waxaa sidoo kale madashan jooga hogaamiyaasha mucaaradka ee diidan furista dastuurka oo ay horboodayaan Khayre Sheekh Shariif Cumar Cabdirashiid Cabdiweli Cali Gaas Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo xubno kale oo dhammaantood ka soo horjeeda in Xasan Sheekh uu dhameystiro dastuurka una arkaya in uu ku dhaqan gelinayo yoolkiisa ah in dalku uu ka guuro nidaamka baarlamaaniga ah una guuro nidaamka madaxtooyada oo la yeesho oo wadanku uu yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyadoo meesha laga saarayo kursiga ra'iisul wasaaraha iyo awoodda faraha badan ee baarlamaanka.
waxaa muuqataa in Garowe kulamada xasaasiga ah ee ka socda ay yihiin kuwa saameyn leh inta lagu guda jiro xafladda caleemasaarka Saciid Cabdilaahi Dani. dhammaan madaxdii khudbadaha ka jeedisay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa waxa ay hambalyo isku mid u direen Saciid Dani oo markii labaad ku guuleystay kursiga madaxweynaha Puntland 5 sano ee soo socotana hogaamin doona maamul goboleedka Puntland. waxaana muuqata in Saciid Cabdilaahi Dani uu dhankiisa doonayo inta uu kulankan socdo in uu ku dhaqangeliyo damiciisa siyaasiga ah ee ka dhanka ah dowladda federaalka, inkastoo uu Xasan Sheekh Maxamuud kaarto siyaasadeed ciyaaray ka hor inta aanu ka degin Garowe oo baarlamaanku ay meel mariyeen furista iyo ka doodista dastuurka. hadallada ay mucaaradku ka jeediyeen caleemasaarka Saciid Dani ee Garowe ee Xasan Sheekh lagu weeraray ayaana u muuqda kuwa aan micno badan soo kordhinayn maadaama hadda ay doodu taalo golaha baarlamaanka. waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Banaadir Star Media.